maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo aan soo hor imiday guddiga doorashooyinka oo aan isdiiwaan geliyey si aan uga qayb galo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhici doonta bisha February 8 haddii aan la yiraahdo safarkii dheer ah oo aan u soo galnay doorashooyinka dalka Soomaaliya oo laga soo bilaabay doorashadii golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee soo gabagabowday ee ay ku xigsatay doorashadii guddoonka golayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maantana diyaar garowgeedii ugu dambeeyay la jooga oo ah doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arintaas arin aad iyo aad guul u laawaye waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed mas'uuliyiintii dawladda iyo guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka loo xil saaray ee ka soo qayb qaatay doorashooyinkaas ilaa maanta soo gaarsiiyay halkan aad iyo aad ayay waxay u mudan yihiin abaalmarin iyo mahad celin dadka Soomaaliyeed ee degan dhammaan dawlad goboleedyada dalka ka samaysan iyo gobolada dalka caasimadooda ee ka qayb galay doorashooyinkaas qaarkood u safreen qaarkood riski iyo khatar badan u qaateen qaarkoodna maxaan ku yiraahdaa ay maalmo badan ay ku qarash gareeyeen si ay doorashada uga qayb galaan waxaan leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin mashruuca doorashadu mashruuc Soomaaliyeed oo mashruuc qaran ah oo maxaan ku yiraahdaa dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galeen oo ahaa guul ayaanu ku soo ilaa hadda maraya wali ma uu gabagaboobin bisha 8 ayuu gabagaboobi doonaa dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego mashruucaas guul oo ahaa midda noo dhimanna ilaahay idinkiis guulay ku dhamaanaysaa waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo cadeeyo nidaamka doorashada ee soo hagaagay ee hadda inta yarta ka dhimantaa doorashada madaxweynaha sidii loogu talagalay in nidaamkii shuruucdii loo dejiyay iyo guddiyadii madaxa bannaanaa ee loo dejiyay iyo kuwa baarlamaanka hadda doorashada madaxweynaha ee hagaya intaba inaan u hoggaansami doono shuruucda iyo nidaamka loo dejiyay waa number 1 doorashadana si xalaal ah oo daahfuran ayaan uga qayb galayaa wixii ka soo baxa halkaas ee doorashadaasi ka soo baxana waan aqbalayaa waana aqoonsanayaa marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed
kalsooni baarlamaanka federaalka Soomaaliya labada aqal kalsooni buuxda in ay ku hagaajiyaan kuna wadaan kuna daadiyaan doorashada dadka Soomaaliyeedna kalsooni buuxda inay qabaan dawladoodu in ay awoodeedo rasmi ah gaarsiisan tahay dalka inay marxaladaas ka gudbiso marxaladda labaad ay u gudbiso marxalad cusub dawlad cusub mandate cusub madax cusub ayaa muxuu dalku yeelan doona aadaan ugu kalsoonaa meesha uu ma joogo meel aad iyo aad uga sii fogna inuu gaari doono 4 sano ay soo socoto